1967 waddan mashquul ah oo ku taala caasimadda Mareykanka baabuur taxi ayaa ku jiray bisad jidka goynaysay. dadka goobta jooga waxay u haysteen shil caadi ah oo dhacay maalintaas, balse xaqiiqadu waxay ahayd mid ka durugsan midaas. bisadaas taxigu jiray waxaa ku burburtay 5 sano oo cilmi baaris ah, qalab elektaroonig ah oo aad u casrisan iyo hanti ka badan $20 milyan. ku soo dhawaada janalkeena si aan kuula wadaagno xogo dahsoon. haddii aad nagu cusub tahay fadlan inagu soo biir oo subscribe inoo saar kambalelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiisaha leh. maanta waxaan ka sheekayn doonaa qisadii sirdoon ee ugu yaabka badneed qarnigii 20aad, bisadii basaaska ahayd. muuqaalka like saar, aragtidaada nagula wadaag kommentiga. sheekadeenu waxay ka bilaabanaysaa sanadihii 60maadkii, xilli dagaalkii qaboobaa uu marayay meel xasaasi ah. hay-adda CIA da Mareykanka waxay wajahaysaa caqabad weyn. saraakiisha Soofiyeedka Ruushka oo aad uga shakisanaa in xafiisyadooda iyo guryahooda la dhagaysto, waxay xogaha ugu xasaasisan ku kala qaadan jireen jardiinooyinka iyo goobaha dadka ku lugeeyaan. teknolojiyadda xilligaas ma ahayn mid aad u sii horumarsan oo saamaxaysa mikrofoono meel fog wax ka basaasi kara. halkaas waxaa ka dhashay su'aal aan caadi ahayn oo ay isweydiiyeen injineerada CIA da: maxaan u isticmaali weynay bisadaha? bisaduhu waa xawayaan meel kasta iska dhex gala, cidna ma shakida markii ay ag fadhiistaan dad sheekaysanaya. howlgalku wuxuu ku bilaabay in bisad caadi ah loo bedelo mashiin sirdoon oo nool. dhakhaatiir ku takhasusay qalliinka xawayaanka ayaa qalliin ku sameeyay bisad yar oo midabkeedu yahay madow iyo caddaan. waxaa mikrafoon lagu dhex qariyay godka dhegta bisadda. waxaa sidoo kale transmitter, qalab gudbinaya xogta mikrafoonka, lagu dhex qariyay qaybta dambe ee madaxa iyo lafdhabarta. ugu dambeynna waxaa anteena lagu dhex tolay dhawarta bisadda ilaa seynta bisadda, iyadoo la raaciyay neerfayaasha bisadda si aan bannaanka looga arag, na saamaxaysa calaamadaha signoolka inay soo qabtaan. sidoo kalena baytarigii qalabkan uu ku shaqayn lahaa feeraha bisadda lagu rakibay. inkastoo qaybtii farsamada guulaysatay, haddana dabeecadda bisadda ayaa noqotay caqabad labaad. bisaddu waxay diidaysay inay amarada qaadato. mar kastoo ay gaajooto ama aragto wax mashquuliya. si tan loo xaliyo, CIA waxay samaysay qalliin kale oo lagu xanibayo dareenka gaajada bisadda si ay hawsha oo keliya diiradda u saarto. sanadkii 1967, maalihii koowaad ee shaqada bilaaban lahayd, ayaa bisadii la keenay meel u dhow beerta Wisconsin Avenue ee magaalada Washington DC. halkaas oo 2 askari oo Ruush ay ku sheekaysanayeen. markii sargaalkii CIA uu sii daayay bisadii si ay dhanka raggii Ruushka ahaa ugu gudubto, waxaa dhacday musiibo lama filaan ah. bisadii oo dhowr tilaabo keliya qaaday waxaa dusha kaga istaagay taxi xawaare ku socday. isla goobtii ayayna ku nafbaxday. 5tii sano ee cilmi baarista ahayd iyo malaayiin dollar waxay ku dhex milmeen dhiigga iyo hilibka jidka yaalla, iyadoo CIA aynan helin hal erey oo sirdoon ah. mashruucan oo socday muddo 5 sano ah wuxuu liqay adduun lacageed oo gaaraya $20 milyan oo maanta u dhiganta ku dhawaad $180 milyan. mashruucii bisadii basaaska ahayd waxaa la xiray isla sanadkaas. CIA waxay qirteen warbixin ay soo saareen in dabeecadda dabiiciga ah ee xayawaanka aanan la waafajin karin baahiyaha sirdoon ee bini'aadamka.